ugu horeyn subscribe saar channelka Dhimbiil-Dhise, like saar muuqaalka, furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee muuqaalka xiga. dhammaantiin waa idin salaam daawadayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii gobolada Soomaaliya ee channelka Dhimbiil-Dhise. maantana waxaan uga hadli doonaa qaybta koonfureed anagoo ka soo bilaabayna gobolka Jubbada Hoose. daawasho wanaagsan dhammaantiin. gobolka Jubbada Hoose waxa uu ku yaalaa koonfurta Soomaaliya, xuduud la leeyahay dalka Kenya. bariga waxaa ka saaran badweynta Indiya, waqooyigana waxaa ka saaran gobolka Jubbada Dhexe. gobolka waxaa dhex mara webiga Jubba oo loogu magac daray webiga Jubba. wuxuu badda kaga daraa goob weyn oo Kismaayo u jirta 18 kiiloomitir. gobolka wuxuu ka mid ahaa gobolka Jubbada Dhexe oo waxay isku ahaayeen hal gobol, waana la kala qaaday halka markaasoo magaalada Kismaayo looga dhigay gobolka Jubbada Hoose magaalo madax. markana aan u gudubno gobolka Jubbada Hoose degmooyinka uu ka kooban yahay. sawiradani waxay noqon doonaan sawirada dhammaan degmooyinka gobolka, waxaana ku bilaabi doonaa degmada Kismaayo. waxaa noogu xigta Afmadow, waxaa ku xigta Jamaama, waxaa ku xigta Sanguuni, waxaa ku xigta Xagar, waxaana ugu dambeysa Badhaadhe oo ah 6daas degmo oo ka kooban yahay gobolka Jubbada Hoose. tuulada Kudhaa oo iyaduna caan ku ah gobolka Jubbada Hoose waa jasiirad dhanka badda jirta, inkastoo aysan ku wada hareysnaan biyaha. jasiiradda Kudhaa waa xeeb dheer, waxayna leedahay xeeb ay ka kulaashay dhinac kasta, waana qayb badda ka mid ah balse bariga u furan. waxaa joogta degmo loo magacaabay waqti hore, inkastoo aan weli degmo loo magacaabin balse way u qalan tahay loo magacaabo. si kastaba ahaatee, Kudhaa waxaa degan Soomaali baajuun iyo dad nabadda jecel. Kudhaa waxay leedahay iskuulo iyo ceel biyoodyo iyo hosbitaal, waxaana ku nool xoolo dhaqato iyo kalluumaysato. dadka ku nool Kudhaa nolosha waxay ku tiirsan tahay xoolaha iyo kalluunka. Kudhaa halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa taariikhdii gobolka Jubbada Hoose. la socod wanaagsan, fadlan subscribe saar channelka, like saar muuqaalkan, commentigaagana hoos ku dhiibo si aad ula socoto muuqaalada xiga. mahadsanidin.